الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وموالاه maanta taariikhdu tahay 24 bishii 11 2025 maxkamadda darajada koowaad ee degmada Galkacyo oo fadhigeedu u dhan yahay kana kooban anigoo ah garsoore gudoomiye Maxamuud Cabdisalaan eedaysanayaasha kala ah eedaysanaha koowaad Hodan Maxamuud Diiriye 34 sano jira ina xaawo xasan ku dhalatay xamar degan Galkacyo ku eedaysan qodobka 434 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed eedaysanaha labaad oo ah Cabdicasiis Nuur Xaashi Calas 65 sano jira ina ardo Maxamed Ali ku dhashay Galkacyo degan Galkacyo ku eedaysan qodobada 432 448 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxay maxkamaddu ku dhawaaqay dhibanana ka tahay dhibanaha koowaad marxuumad Saabiriin Saylaan Cabdille Weys 14 sano jira ina Faaduma Cabdirasaaq Nuur eedaysanaha labaad dowladda Puntland iyo dhibanaha labaad dowladda Puntland iyo shacabkeeda maxkamaddu waxay ku dhawaaqaysaa xukunka galdacwadeedkaasi waafaqsan qodobka 121 asbaabta go'aanka maxkamaddu markii ay aragtay eedda xafiiska xeer ilaalinta gobolka Mudug ee sumadeedu ay tahay xa isbaaro gama isbaaro daba sa isbaaro 2025 kuna taariikhaysan 19 bishii 11 2025 nuxurkeeduna uu yahay eed ciqaabeed lid ku ah eedaysanayaasha kala ah kow eedaysanaha koobaad Hodan Maxamuud Diiriye ina xaawo xasan 34 sano jira oo ku eedaysan qodobka 434 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed eedaysanaha labaad Cabdicasiis Nuur Xaashi Calas ina ardo Maxamed oo ku eedaysan qodobada 432 448 maxkamaddu markii ay aragtay jawaab celinta eedaysanada Hodan Maxamuud Diiriye oo ku jawaabtay eeda la soo jeediyay magalin maxkamaddu markii ay aragtay jawaab celinta eedaysane Cabdicasiis Nuur Xaashi oo isaguna ku jawaabay eeda la soo jeediyay magalin maxkamaddu markii ay aragtay difaaca qareenka eedaysane Hodan Maxamuud Diiriye qareen Cabdicasiis Maxamed Faarax maxkamaddu markii ay aragtay difaaca qareenka eedaysane Cabdicasiis Nuur Xaashi qareen Cabdiqani Cumar Aadan maxkamaddu markii ay aragtay qiraalka garsooraha hortiisa laga qoray si waafaqsan qodobka 168 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed qiraalkaas oo laga qoray Hodan taariikhdu markay ahayd 13 bishii 11 2025 kaas oo ay ku qiratay dilka marxuumad Saabiriin Saylaan Cabdille maxkamaddu markay ay aragtay cadeymaha xafiiska xeer ilaalinta gobolka Mudug oo maxkamadda hor keenay oo ay kamid yihiin muuqaalada laga duubay marxuumadda warqadda dhimashada marxuumadda marag muujinta dambiga iyo markhaatiyaashii uu keenay oo hor keenay maxkamaddu markay aragtay qiraalka eedaysane Hodan Maxamuud Diiriye oo maxkamadda horteeda ay ka qiratay jirdilka marxuumad Saabiriin Saylaan Cabdille maxkamaddu markii ay aragtay doodafeedka xafiiska xeer ilaalinta maxkamaddu markii ay aragtay doodafeedka qareenada difaaca eedaysanayaasha maxkamaddu markii ay aragtay gabagabada xafiiska xeer ilaalinta iyo gabagabada qareenada difaaca eedaysanayaasha markii ay aragtay maxkamaddu codsiga eedaysanayaasha codsiga dhibanayaasha maxkamaddu markii ay aragtay shariicada islaamka aayadda 178 179 ee suuratu al-Baqara aayadda 32 45
سورة المائدة آيات صدني صدحات سورة الإسراء محكمة مركز يركتي قضبك أفر بقول صدن إيو أفر حيرك عقاب الصومالية سيدا درتد محكمة وحاو عداتي إن دنبي دعاي إيضا سنياشنا أيهين كوي قلي قوانك محكمة درجة كوباد دقمة قالكعيو waxay ku xukuntay dambiile hodan maxamuud diiriye inaxa oo xasan 44 sano jir ah dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuumad saabiriin saylaan cabdille maxkamaddu waxa ay ku weyday eedeysanaha koowaad cabdicasiis nuur xaashi calas qodob eedeysanaha labaad cabdicasiis nuur xaashi calas qodobada xafiiska xeer ilaalintu ay ku soo eedeeyeen ee ah 432 afartan iyo sideed waxayna maxkamaddu ku heshay qodobka 430 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxayna ku xukuntay dambiile cabdicasiis nuur xaashi calas in arda maxamed hal sano oo xarig ah iyo ganaax lacageed oo gaaraya $500 cidii aan ku qancin fadhiga go'aanka maxkamadda racfaan ayaa u furan waana mahadsantihiin